بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ولا ليالوان السلام يا maanta waxaan ka hadlanaa mawduuc cajiib ah oo muhiim ah gaar ahaan soomaalida ku nool wadanka ingiriiska UK. mawduuca si fiican u dhegeysta insha Allah. NHS waa wasaaradda caafimaadka ee ingiriiska ee ka mas'uulka ah arrimaha caafimaadka iyo waxyaalahaas oo kale. waxay keeneen wax cajiib ah. waxa cajiibka waa maxay daba in xubnaha jidhka bani'aadanka inay xaq ku leeyihiin qofku marka uu dhinto inay xubnaha ay kala baxaan ama il ha noqoto ama keli ama beer ama wax kasta ha noqoto jidhka qofku markuu dhinto in lagala baxo macnaha tabaruc in iyagu qaataan oo meeshay rabaan geeyaan ama qofkay rabaan siiyaan ama ay moogtahay meelaha lagu safe gareeyo lagu kayd gareeyo geeyaan hadhowto markii loo baahnaado si qofka loo siiyo. marka form baa jira website-kan baad ka helaysaa. form baa jira. formkaas wuxuu ku leeyahay haddaadan doonayn jidhkaaga in aan waxba laga qaadin oo ay iyagu ku tasarrufin formka buuxi waa kale wuxuu ku leeyahay register your details opt out macnaha iska khaariji ama ka bax waxaan ay doonayaan ha gelinba. opt out of organ donation waxa weeye waa xubnaha jidhka tabaruca marka aad siinaysid qofkii kale sida dhiigga oo kale dhiigga waxaa dhahdaa blood donation qofka matalan dhiigga ku tabarucaya qof kale siinaya waxaa dhahdaa blood donation. marka wuxuu ku leeyahay use this formkan isticmaal to record a decision on the NHS organ donor register not to donate your organs and tissues or tissue after death. marka formka buuxi haddaad formkan buuxisid macnaha khalaas waad iska khaarijisay macnaha xaq kuma laha qofkii hadduu berito dee tii ilaahay timaado uu geeriyoodo xaq kuma laha inay qofka xubnihiisa kala baxaan jidhka. qofku markuu dhinto waxaa fiican subxaan allah jidhka bani aadanka ودعينا اللهم احفظ لنا إله نحفظ أسماعنا وأبصارنا وقواتنا يعني إله حوق يقول إنه إلهي إنها باركتي ودناها بيركا كليها شركة إله إنه إلهي قريب كستو كم إذا إنه قف ممكن أنتو عارف إن لا سقو شركة سي باركتي سليم دي سيدي وكل أنتي وسيدي إلهي أبو ري إن قبرك قالوا سقو أم حول قلبه تاسع في عنك مركا والله وخطر أرين تاسو وحال الشيء يبريها كان أدام فوم كالبوحين khasab bay kaga qaadayaan. ingiriiskana waa taqaaneen ingiriiska wuxuu yadaa aad bay u soo jeestay waliba gaar ahaan marka la eego dhinaca familiyada ilmaha yar xoog baa laga qaadaya haddii aad juuq u tirahdid waa guriga lagu laga qaadaya. dabriyahan aad bay arrintaas u socotaa. haddana waxaa loo yimi waxa cajiibka jidhkii bani'aadanka haddana loo yimi dadkani waxay rabaan inay wax kasta bayliqaystaan. haddana xoog baa laga qaadaya caloosha waxaan sheegayaa beerka xoog baa indhaha laga qaadaya. qofkii hadduu geeriyoodo waxaa la oranayaa haa ma dhintay okay indhaha noo saara beerka noo saara keliyaha noo saara maaragtay waxyaalo fara badan baa oranayaan saara. marka wallahi xaqiiqatan waa wax aad yani u dhib badan. marka walaalayaal formka ku dadaalo insha allah formka lagu dadaalo waa very simple weeye waxana khasari maysid waa dhowr daqiiqo haddii ay iyaga run ka tahay waxaan inuu khasab ay ku tahay in ay dadka ka qaadaan inaguna waa inaynu formka buuxsana insha allah tacaala. marka waa kaade magacaaga gelinaysaa titleka first name magaca ugu dambeeya middle name-ka geli magacaad rabtid taariikhda dhalashada cunwaankaaga qoraysaa emailkaad qoraysaa telefonkaaga mobilkaaga maxay kale ethnicity-da matalan qofku ma afrikaan ba ma asian ba ma european ba waxa uu yahay diintaadaad qoraysaa diinaha waka uu ku tusayaa muslim waxaad kaloo qoraysaa hadhow markaad tig ku samee submit baad samaynaysaa lambarkuna waka haddaa rabto lambarka kala xidhiidh yani qaanuunka waxyaalaha ku qoran meeshatan waan fahmay waan saxiixayaa diyaar baan waa informationka wax kastana waa okay. marka halka waxa weeye submit waad saxiixaysaa waad waqacaysaa I don't want to donate my organs ma rabo inaan tabaruco xubnaha jidhkayga maba rabo waa khad waadax ku soo qoran weyn oo green marka taa tig ku samaysid oo tan qortid submit shakada waa dhamaatay hadhow systemkay gelaysaa. qof haddaad taqaanid saaxiib ama ahal ah oo yoom min alayaam geeriyooday oo la yidhi dhakhtarkuu joogaayo xubnaha lagala baxo dee formkii baad haysaa formkii oo la saxeexay wax kasta hadhow qofkii waa la seef garaynayaa dee subxaan allah xubnihiisi iyagoo sidoodii ah qofkii waa lagu aasi karaa. marka insha allah tacaala walaalayaal ku dadaala hawsha qof kasta oo ingiriiska joogana u dira sadaqa jaariha ku noqoto addaalu cala alkhayri ka faacilihi. subxaanaka allahuma bixamdik nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk.